بسم الله الرحمن الرحيم أصحابتا يهبه وناكسن meel kastoo aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha maxaa laga leeyahay suuqa kala iibsiga warbixin kooban ayaa idinka haya saaxiib haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato channelkeenan fadlan subscribe noo saar waa ku mahadsan tahay saaxiib rajaanqaadkaaga waxaan maanta eegi doonaa garsoolaha McDean oo qirtay khaladkii uu ku lahaa goolkii barbaraha ee kooxda Tottenham ku barbaraysay naadiga Chelsea waxaan ognahay in isbuucii hore ay naadiga Chelsea iyo Tottenham iskala hor yimaadeen kulan adag ee derby London ah oo ka tirsan horyaalka Premier League labadan kooxood oo ah laba kooxood oo dadku ay u maleeyeen inay isku awood yihiin maadaama ay haystaan dhalinyaro xirfadlayaal ah iyo neemo fiican iyo laba tabar oo khabiiro ah ay ku ciyaarayeen oo ay diinaban laba naadi oo sansan waqti badanna isla soo dhalay boon adag ayaa waxa ay isbuucii hore iska hor yimaadeen horyaalka Premier League oo bilow ah waxa ay labadan kooxood ay ku bilowdeen dardar xoog leh kulankan ayaa ahaa kulan aan la saadaalin karin maadaama labadan naadi ay yihiin laba naadi oo adag wax kasta laga filan karo mid walba inuu gool la imaan karo daqiiqad walba oo ciyaarta ay socotay naadiga Chelsea ayaa goolka hore la hormaray waxaana u dhashay laacibka lagu magacaabo Khalid Koulibaly darbad laga keenay kornada ayuu shoot dabteeda ugu ceshay goolkaas oo ahaa gool taariikhda u galay laacibka lagu magacaabo Khalid Koulibaly oo dhawaan gal ku ah naadiga Chelsea ciyaartan ayaa waxay ciyaar isku cufan oo weer iyo weer celisa maadaama naadiga labada naadi ay yihiin laba naadi oo isku awood ah oo isku macallin ah oo is dheeliyeen hal macnaha shax oo labada naadi ay yihiin laba naadi oo sansan kooxda Chelsea ayaa waxay ahayd kooxda mar walba ka gacan sareysan naadiga Tottenham maadaama ay joogtay garoonkeeda لاعبين كوحدة تشيلسي ayaa ahayd لاعبين booniga si fiican isku dhiibay waxaana soo baxday in laacibka lagu magacaabo Khalid Koulibaly uu yahay nin degan ku fiican ku active ku ah deganaan iyo xasilooni laacibkan ayaa waxa uu ka soo tagay dalka Talyaaniga waxaana uu Chelsea ku soo biriyay xaga hadda soo dhamaanaya naadiga Chelsea ayaa wax badan ka faa'iiday in laacibkan uu dhinaca dambe ee kooxda Chelsea uu aad iyo aad macnaha deganaan iyo xasilooni ay aad ugu muuqato iyo booni aan macnaha aan khalkhal iyo waxa ku jirin maadaama laacibkooda hore ee Rudiger oo ahaan la si fiican booni u dheeraa laakiin nin khalkhalka u saaxiib ah Khalid Koulibaly oo dhawaan gal ayaa waxaas u xaliyay waxaan arkay in booniga Chelsea ay ka soo dhisto dhinaca dambe ee difaaca uu ilaa gaariya naynka iyo garbaha maadaama khadka dhexe uu taagan yihiin Jorginho iyo Kante ay si fiican booni ugu dhufsanayeen laacibada lagu magacaabo Thiago Silva iyo Khalid Koulibaly waxaan kaloo saaxiib kulankan u ahaa kulan naadiga Tottenham oo ku dheelisay counter attack maadaama ay haystaan niman counter attack aad iyo aad ugu caanbaxay inay yihiin naadiga ugu badan ee xil ciyaareedkii la soo dhaafay leeyay counter attack ugu badan ee horyaalka Premier League maadaama ay san niman xirfadlayaal oo dheereeya boonigana si fiican isku dhiiba xirfad iyo aqoon ku darsaday aan lumin chance ay ku helaan kubadda goolka hortiisa laacibka lagu magacaabo Son iyo Harry Kane oo aadama isfahansan maskax iyo caqli fahansan maadaama ay yihiin wax ay ku dheereeyaan booniga lagu magacaabo counter attack ama roor celiska markaad weerarad naadiga lagu magacaabo Tottenham ay ku galaan xagga dambe ee difaaca markay booniga ay helaan labadan laacib oo lagu magacaabo Harry Kane iyo Son ayaa booniga hor maraya oo orod iyo xawaaro sare ah iyo booni isku dhasho aad iyo aad u wacan ku hormara naadiyaasha ama ku kala jabiyay naadiyaasha horyaalka Premier League waxaan ogeyn naadiga Tottenham in sanadkii hore naadiga lagu magacaabo Manchester City uu labadiiba ka qaatay maadaama ay haystaan niman xirfadlayaal ah oo booniga rogal celiska aad iyo aad ugu dheereeya waxaan kaloo saaxiib aan ku eegnaa kulankan Chelsea maadaama kulankan Chelsea labadii gool ay dhasheen kooxda Tottenham uu ahaa laba gool oo nasiib ah oo khaladaad u sameeyay laacibka iyo laacib kamid ah kooxda Chelsea iyo ninka leelinayay ciyaarta oo lagu magacaabo McDean tabara garsooraha hogaaminayay kulankii Tottenham iyo Chelsea ayaa qirtay inuu khalad weyn ku lahaa kulankii Tottenham iyo Chelsea uu khalad weyn ka galay naadiga Chelsea maadaama khalad lagu galay daafac badiic naadiga Chelsea timo dheeraha dhawaan galka ah
khaladkaas uusan dhigin laacibka garsooraha ay lagu abaalmariyay in gool looga dhasho naadiga Chelsea. tabaraha ayaana qirtay inuu khaladaadkaas aad uga fiirsanayo mar damban aysan dhici doonin in khaladaadkan iyo mid lamid oo kale inuu ka dhaco horyaalka Premier League. tabarahan ayaa tabar khabiir ah wax badan ka soo shaqeynaya horyaalka Premier League, laakiin khaladkaas wuxuu sheegay inuu bilaadan yahay khaladkaasna aysan garsoorayaasha kale calaamadaha iyo garsooraha afraad aysan ka qaban saasna uu ku qaatay go'aanka ah in ay tahay Bruno ay tahay Play ساتر ناديga Tottenham ay weerar ugu soo qaadeen naadiga Chelsea halkaas uu madax ugu shubay laacib kale oo magacaabo Super Hurricane daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta ka dhamaatay 3 daqiiqo naadiga Chelsea-na dhibicii saddexda ah ay laba ka mid ah isa ku waayeen ay dhibicii Tottenham iyo naadiga Chelsea lagu magacaabo ay kala qeybsadeen saaxiibayaal oo kale waxaan haynaa naadiga lagu magacaabo Manchester City iyo Liverpool iyo naadiga lagu magacaabo Barcelona waxay todobaadka dambe ku dheelayaan naadiga garoonka Camp Nou wadanka Spain magaalada Barcelona. kulankan ayaa wuxuu kulan saaxiibtinimo ah oo lacagta laga helo kulankaas waxa la ururinayaa ALS hay'ad laho oo cudurada macnaha cudurka laho ALS ku baaritaan ku wada meesha uu ka yimaado maadaama cudurkan uu ku dhacay boortii hore naadiga Barcelona. cudurkan oo ah cudur khatar ah ayaa hay'ad kamid ah hay'adaha dalka Spain waxa ay ku wada baaritaan waxaan la sheegay in kulankaas lacagta laga helo garoonka Camp Nou ay hay'adaas lagu deeqi doono sidee xog iyo information badan ugu raadayso cudurkan oo ku dhacay boortii hore naadiga Barcelona. laacibka tabaraha lagu magacaabo Pep Guardiola ayaa sheegay in kulankaas uu yahay kulan weyn inuu dib ugu laaban doono garoonkii waqti badan ku soo sameeyay wax adduunka ay la yaabaan garoonkii uu ku soo sameeyay wax walba adduunka uu ku soo qasay Camp Nou. waxa loo yahay in Pep Guardiola uu yahay ninka soo saaray laacibka lagu magacaabo Leo André Messi waxa la sheegay inuu soo saaray Xavi iyo laacibka lagu magacaabo Andre Iniesta iyo Xavi waxa lagu magacaabaa ama lagu qiyaasay inay yihiin dhexdii ugu fiican adduunka soo madha maadaama la arkayay Xavi, Iniesta iyo Sergio Busquets oo ah saddex khadka dhexe ee ugu dheeli jiray naadiga Barcelona ay ahaayeen saddexda laacib ee khadka dhexe ugu baasida badan booniga ama ugu haynta badan adduunka soo maray. waxaan sanadkii ay waayay Pep Guardiola uu tabaraha u ahaa naadiga Barcelona ee ahayd gooley Barcelona waqti badan uu soo qaatay oo wax walba ka soo sameeyay goolasha adduunka wacdaradii 2011 ku sameeyay Leo André Messi waxa qayb ka ah Pep Guardiola oo sanadka uu sanad u iftiimaya adiga Barcelona waxaanu dib ugu laaban doonaa Camp Nou iyo magaalada ka soo jeedo Catalonia ee magaalada Barcelona. Dadka kale waxa la sheegayaa in